qasam maaha jacaylo qudhayda waxdanaysa wax la-aan u qalmayne mid quraa ifka doortay ayay tiri aroos labaad ayaana dhiganaya nasteexa indho. Drama show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin. ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogteen kusoo dhawaada bandhiga Drama show. Waxaan maanta idinkugu haynaana fanaanada caanka ah Nasteexa Indho oo ku sugan bariyay oo dambeeyaba dalka UK oo sida ay uga tagtay magaalada Oslo ee xarunta Norway kadib markii arooskeedii ballaarnay markii uu marayo jaan iyo jiibtaba la isla ruxo ay dad tira badani oo soo jabsadeen kadibna booliska ku soo baxay oo arooska halka lagu cancel gareeyay. Cadhadii iyo madax xanuunka ay ka qaada halkaas Oslo ee Norway isla subaxiiba waxay ka raacday diyaarad oo waxay ka degtay Heathrow International Airport ee London. halkaas waxaa ku soo dhaweeyay xaajigeedii iyo caa'iladii iyo dumaashiyaasheed oo si ballaaran halkaas loogu soo dhaweeyay. waxay aamusnaataba maalmo ay ka soo wareegaan. Nasteexa Indho iminka waxay ku dhawaaqday ay doonaysaa in ay dhigato aroos kaloo laga yaabay. waxay tiri aroos party 2 ayaan dhiganayaa wuxuuna ka dhacayaa London UK. xaafad waxay ugu wareegtaa waa xasarade soo wada baxay taagan tahay cid wax qaadi kartay cid kale. Nasteexa Indho waa fanaanad Soomaaliyeed xumaana ma geyso dhibna ma geyso qofka bini'aadamkana maahan in la dhibo ayada garatay in xaajigeeda guursato oo waa ay jeceshahay wuuna jecel yahay in laga daayo dhibka iyo lorka iyo buuqa wanaagsan. dhagahan ka furaysanaya ay taagan tahay aroos labaadana dhiganaya maxaa laga qaban karaa. Nasteexa Indho ugu dambeyn waa ay ku dhawaaqday in arooska uu dhici doono hase yeeshee waxa uu ka bedelan yahay kii hore uga bedelan yahay kan xilligu dhacayo waxba lama soo dhajin laakiin party 2 baa dhacay tiri ugu dambeyn hoolkii oo la sharaxay oo la soo duubay baahisay oo ay banaanka soo dhigtay. waxay tiri halka waa lagu dhigayaa arooskii waaka waxaana ka dhacayaa UK no more Scandinavian dambe meel maaragtay unsirido baalaha la isaga rifo. haddana waxaan filayaa Nasteexa Indho in ay heer London u maayma sida dadkan kale oo Yurubtan kala jooga sida Sweden, Norway, Finland wadamadan kale lagu baay oo soo jabsan doonaan ay dad reer bagaal oo in badan wadanka deganay ulbaxa inay yihiin on maleynaya laakiin kuwani aroos aan laga wacan hayacday noqdeen markaasay waardiyaasha xataa dhagta ku dhufteen. meesha waxaa la yiri 4 waardiya ilaalinaysay 4 waardiya markii ilaalinaysay 2 waa la dhaawacay 2 kalena naf la car ay carareen ka bacdi booliskii kol gareeyeen. booliskii waa meeshii maado iyadoo waxba la haysan oo nimca yaasiin iyo waxaan maleynayaa inuu haysay Nuur Caraale ya mase Faysal Xawaas waxsaas fanaaniin aad u ruux fanaan la soo casuumay oo wada imaaday oo qaarkood safarada dheer soo galeen waxba kama aysan haysan ma garatay. waxaa soo dhan waxa u sabab ah dadka soo booqay ee arooska damcay in ay joojiyaan. fanaaniinta dad doonaysa waa bujeedin hool yar inuu yahay meeshii waxaad ka dhigteen xafladii kooda Luuliyo haday saas u ballaaranta aroosku balaareed waxay ku qaban lahayd meelaha banaan isku soo bax amal ay qaban lahayd laakiin aroos inuu yahay gartaan fiin arooska inuu ku ciyaarta hadda ku qasabteen in ay qarash labaad gasho fanaanadii oo ay aroos kala ballaaran dhigto waayo heesii xitaa fanaanada loogu talagalay waxaan ku iraaday ay ugu talagaleen fanaaniinta heesii ma la qaadin oo heesiyeedii Nasteexa Indho wali way dhiman yihiin oo fanaan walba ilaa aroos markuu imaanayo hees ayuu u talagalay. Soomada way sabixin markay heesuu fanaaniinta soo dhigay ay qaadayeen ama ugu talagaleen ay Xuseen Biite iyo Nasteexa Indho ay ku amaanayeen. marka anaguna waa ka wada sugaynaa halkaasi arooskaas iyo hambalyada iyo fanaaniintii hore miyaa imaan doonto dabaaldegii iyo isku hoolkii oo kala miyaa la kireyn doonaa fanaaniintii faraha badneed iyo dadka isku tirada badnaa miyaa horta fanaaniintu way imaanayaan baan maleynayaa laakiin si dadka noomoorina mar dambe ibaadaan dad saas tiro badan oo qasam mar walba mar dambe xafladaasi anaguna isha ayaan ku haynaynaa maadaama daawadayaal wixii ka soo kordho wixii maaragtay suuqa ku jira inaan soo xaqiijino waad ogtihiin wararka xasaasiga markii halkaan tahay Drama show kama maqnaado waxaan ku waa barnaamijkiisa oo aad runta ka heli jirteen. dhowr jeer ayaa isku dayn inaan ila wareeyadii xasaasi xilliga u dhacayo aan la xiriirna laakiin way isnoo suurtagal weyso arrimo farsamo awgeed ama dadka dhibaato laga baqaya awgeed lama ogola in xilliga la shaaciyo markii xilligu wax yar ka dhimanta dadkii la casuumayo hoos baa looga sheegay maalin hebel imaada la leeyahay laakiin social media laga shaacin maayo sidii hore kale. waa Nasteexa Indho 23 November ayuu arooskooda dhacay goormee la shaaciyay August baa la shaaciyay waa bishii 8 meeqa bilood buu dhigsanay si shirka G7 oo kale ayaa loo sii shaaciyay inuu xilligaas dhacayo kale.
marka nasteexa indho waxaan leenahay mar labaad hambaliyo mar saddexaad hambaliyo mar afaraadna hambaliyo anagu hambaliyada ka caajismayna halkan ayaan kuugu soo gudbinaynaa kuugu soo bandhigaynaa arooskaada kii lagu nasto lagu nagaado wada jiro nabad gala allah ka dhigo dee daawadayaal idinkuna waad u joogi doontaan in aad arooskaasi la socotaan ama aad ka daawataan Soomaalida Shidan Drama Show sidoo kale annagana waxa soo dhow dabaaldega dhalashada Soomaalida Shidan ama markii la aas-aasay sida u taqaaniin daawan doontiin hadduu alla yiraahdo debishana waa bil aroos bilii la soo dhaafay waa November iyo December badana waa bilaha arooska iyo xafladaha iyo dhalashooyinka September markii loo gaaro bisha 9aad happy birthday-ga social media wada dhaca Soomaalidu ma January iyo bilii dambe bay dhasheen ilaa January ilaa December September ma dhasheen Soomaalidu waxaan ku yiri February April May June July August halkee lagu ilaawo waxa lagu daraan ku iraaday ciida lagu daray bilahan kalena waxay noqdeen bilihii dabaaldega oo dhalashooyinka aroos haday noqotana bishan la saroosa malaha cunugii gala January caloosha bisha 9aad oo dhashaan February kii gala wuxuu dhalanaya bisha 10 maadaama aroosyada dhacayaan de bisha 9aad bisha 10aad bisha 11aad bisha 12aad ilaa January bilowgeeda markaas waa aroosyada dhacay cunugii markaas calool galanay wuxuu dhalanayaa bilihii dambe ilaa 9 bilood si good baa caloosha ugu muday intaasina waa in yar iska kaftana iska xasuusina maadaama kooda January Soomaalidu wada qoran tahay bilahan dambe oo gadaalna badan baddeeyada dhaca daawadayaal war la umbe way ka karoona waa in la socodsiin doona haduu alla awoodo la riiraali ka noqdo arooskaasi qiimaha iyo qaayaaban maadaama qof nagu qaaliyo fanaanad caana oo arooskeedii dhacaya Nasteexa Maxamed Warsame Nasteexa Indho iyo Xuseen Biite arooskooda oo u dhacayo waxaana ka dhacayaa dalka UK gaar ahaan London hawlkii lama shaacin xilligana lama shaacin sidaas darteed waan isku daynayna soo ogaano oo inoo suurtagal weysay oo waa la qariyay arrinkaas daawadayaal qaybtan ayaa maanta ku hakin doona barnaamijka Drama Show qaybteeda kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Drama Show adiga kuma dan leh ee dadka iska soocin farxiyo kaba yare beejadka aniga magacayga lagu dhaleecaynayo guulad Simba 6 bilood oo iga caynay 6 bilood oo social media iga caynay Omar Barbar waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo kala tartamaya fanaankii mustaqbalka raba oo doonaya in uu fanaan Soomaaliyeed oo mustaqbalkiisa ifayo noqdo in uu san cawaale aadan aysan dhexmarin wax la xana wax heesta iyo wax fan ku saabsan khadra silimo waxaan dadkii igu wada foogan baaniga mid alla mid waxna dhexmarin ma jirto ha u darnaadaan labada nin ee aan ku sheegay kala qoraalkayga Facebook waxa san salabaan iyo labsa iyo ninka Axmed Weli Asma Love baa u jawaabtay khadra Cabdisilimo shalatolo uu tumay heesaha marka ay qaadaysay Axmed Weli calashan ay dhaleelayso kuwa ay ku xigsiinaysa qaadasana waa gacantii Axmed Weli Ibrahim Farole xawaale aadan laakiin bisaad wada soo tihiin fanaaniinta waa lagu dhigay waxaan u fanaankii irida jabiyay Naciimo Joker Allah yaa yiri carro waa nabad iyo qaar kale oo badan Drama Show adiga kuma dan lahan ee dadka iska soocin daawo barnaamijkan oo iminkaba nagu soo biir Drama Show adiga kuma dan leh ee dadka iska soocin farxiyo kaba yare beejadka aniga magacayga lagu dhaleecaynayo guulad Simba 6 bilood oo iga caynay 6 bilood oo social media iga caynay Omar Barbar
waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo kula dardaarmaya fanaankii mustaqbalka oo doonaya in uu fanaan Soomaaliyeed oo mustaqbalkiisu ifayo noqdo in uusan cawaale aadan aysan dhex marin wax la xana wax heesta iyo wax fan ku saabsan khadra silimo waxaan arkay dadkii igu wada foogan baa aniga mid alla mid waxna dhex marin ma jirto ha u darnaadaan labada nin ee aan ku sheegay kole qoraalkayga facebooka waxaasan salebaan iyo laabsaa iyo ninka Axmed Weli asma loof baa u jawaabtay khadra cabdisilimo shalay toolo uu tumay heesaha marka ay qaadaysay Axmed Weli calashan dhaliilayso kuwa ay ku xigsiinaysa qaadasana waa gacantii Axmed Weli Ibraahim Farole cawaale aadan laakiin bisaad wada soo tihiin fanaaniintu waa lagu dhigay waxaan noqday fanaankii iridaa jabiyey naciimo jookar allah yaa yiri cara waa nabad iyo qaar kale oo badan daraama show adiga kuma dan lahan ee dadka iska soocin daawo barnaamijkan oo iminkaba nagu soo biir